بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waxaan halkan ku saxiixay 3 hindis sharciyeed oo baarlamaanka federaalka ee labada aqalba ay soo wada gudbiyeen oo soo dhameystirmay oo wixii hadda ka dambeeya qarangal noqon doono u gudbi doono waafinta rasmiga ah iyo inta ka dhiman laga dhameystiri doono. waa runtii guul aad iyo aad u weyn oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee xukuumadda intaba ay wada shaqeeyeen oo la soo gaaray. taariikh gaar ah iyo muhiimada gaar ah ayuu leeyahay sharcigan qaarkiis oo sida sharciga sirdoonka iyo mas'uuliyadda qaranka oo aanan jirin sharci dhisan oo hay'addu ay ku dhisan tahay muddo dheer na la wada dhowrayay dhowr iyo 50 sano kadib maanta in la dhaqan geliyay oo uu jiro wax weyn weey. waa tallaabo horey loo qaaday oo aad iyo aad muhiim u ah. sharciga korontada ayaa ka mid ah asigana oo sidoo kale asigana la sugayo muddo dheer oo ay ku xiran tahay horumarka dalka u gaaraya iyo baahida loo qabo iyo sharciga kale ee cunaqabataynta xadidan ee maaliyadda oo loogu talagalay argagixisada iyo dadka lacagaha sida xun ugu dhaqma iyo khalkhalka amni iyo dhaqaalaha dalka dadka khatarta ku haya in uu xadido wax ku dheerkooda in lagu xadido talagalay 3 sharciyo aad iyo aad muhiim ah. waxaan rabaa dib ayaanan ka soo sheegi doonaa lana soo baahin doonaa laakiin shaqo aad iyo aad u fiican ayaa xukuumadda iyo baarlamaankaba ay qabteen sanadkan oo ay dadajiyeen shuruuc badan oo shuruudo badan oo nagu xirnaay markay noqoto xagga deyn cafinta iyo hadday noqoto hay'adaheena muxuu ahay u baahan inay hor u dhaqaaqaan sharciyada ay ku shaqeyn lahayd dhaqaaqi lahaayeen waa ugu hambalyeynaya dadka Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan u sheego dalkani dowladdiisa dowlad sharciyad ku saleysan oo tallaab kasto ay qaadayso hadday horumar tahay hadday amni tahay hadday siyaasad tahay dhammaanba ku saleysan sharciyo. waa sababta aan wada xaajoodka iyo aan ugu jirnahay arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka oo aan rabno dalku dal dastuur leh sharciyadiisa dastuurka ka farcamayo dhan ay u dhameystiran yihiin oo dal casri ah oo qawaaniintu sareyso inuu noqdo ayaan rabnaa. dadaalkaasi aad iyo aad ayaa hay'adaha dawladdu ay u muujiyeen waa tan hadda ku ammaanaya fulinta iyo sharci dejinta intaba. 3dan sharci waa horudhac kuwa badan oo kalena waa soo socdaan. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin hambalyaan leh baarlamaanka xukuumadda waa mahadsantihiin.